waxa la yiraahdaa intradermal injection ama irbada loo isticmaalo terminalka ama skinka. waxaanu qeymin jirnay 3 qaybood oo qaybta ugu sareysa waxaanu oran jirnay epidermis, qaybta labaadna waxaanu oran jirnay dermis, iyo qaybta aynu oran jirnay tii ugu hooseysa oran jirnay hypodermis. marka injectionska inta badan injectionska loo isticmaalo dermiska ayaynu maanta dhiganaa ama ID ba la soo kaabiyaa. maxaa lagu qeexaa ama definition-keega saxdii waa maxay? waa defined waxa lagu qeexaa as insertion in la geliyo of medication ama la dhigo medication dawada into the dermiska dhexdiisa, weer halkaasoo the blood supply dhiigu slow oo ku hooseeyo and drug absorbed slowly. sidoo kale dawooyinku ay maxay ku hooseeyaan nuugitaanka dawooyinku ay hooseeyaan ama nuugitaanka dawooyinku ay hooseeyaan. meeshaasay maxay ayaan maanta baran ama intradermal injection intradermal injectionku inta badan waxa la yiraahdaa information yar oo baa laga bixiyaayo. waa meesha waxa la yiraahdaa longest absorption, waa meesha ugu dheer, yani meesha ugu raagitaanka badan leh marka la sheegayo maxay nuugitaanka weeyaan. oo waliba meelaha laga qaato, micnaha marka laga qaadanayo irbad ahaan loo qaadanayo waa meesha ugu nuugitaanka badan leh, yani nuugitaanka ugu dheer leh. marka waxa laga yaabaa maybe inay qaadato wax ka badan 10 saacadood nuugitaankeegu. I use for diagnosis purpose waxa loo isticmaalaa in wax lagu baaro ama ujeedo baaritaan ma loo isticmaalaa. sidoo kale waxaa loo isticmaalaa body reaction as easily visible, in la arki karo reactionska dawooyinka uu ka bixin karo. tusaale ahaan waxaa la doonayaa qofkani in lagu ogaado qofkani dawadani allergic ma ku leeyahay mise kuma laha. waxaa la isticmaalaya skin test, waxaa loo isticmaalaya habka intradermal injection la yiraahdo. marka waxaa la arki karaa dawadan inta in yar la soo qaataa lagu mudaa qofka, waxaa la arki karaa qofkani marka inuu maxay allergic ku leeyahay inaan ku lahayn. inta badan waxaa la yiraahdaa sites commonly used, meelaha inta badan loo isticmaalo waxaa kamid ah gacmaha inta hore, forearm baa la yiraahdaa, upper arm inta sare iyadana waa loo isticmaali karaa, upper back xagga sare maxay dhabarkana waa lagu tijaabin karaayo, waa meelaha aadka loogu isticmaalo. purposes-ka ujeedooyinka ugu weyn waxay noqon karaan kuwan halkan inoogu xusan. inaynu ogaano sensitivity in qofkani test yani ku leeyahay xasaasiyad inaan xasaasiyad ku lahayn dawo. waxyaabaha ugu weyn kuwaas ayaa ugu muhiim. marka injection-kan diagnostic purpose waa ninka hore usoo xusnay, sida allergic in qofka allergic-giisa lagu ogaado, tuberculosis testing yani qofku inuu qabo inuu qabo bahashan la yiraahdo dhaxanta, inuu yaqaan ama TB-da inuu qofku qabo. saas loo isticmaali karaa. sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa dawooyinka la doonayo in badan in badan ay qaato in la nuugo ama jirka loo nuugo ama jirka la geeyo systemka la geeyo. sida vaccinationska kale ayaa inta badan lagu mudaa. skin sites aniga hore kusoo xushnay forearm-ka inta badan ugu caansan ama xaggan hore maxay jirka xagga hore. jirka ma aha waliba gacanta xagga hore yaanan khaldine. equipment-ka inta badan loo isticmaalayo waxaa kamid ah insulin injection, irbada yar halkan aad ku aragtaan ayaa inta badan loo isticmaalaa. hadduu qofku xirfadiisu aad u fiican tahay irbadaha kale uu isticmaali karaa. waxaa la yiraahdaa waliba wuxuu aad u isticmaali karaa 22-ga gaugeska drug. haddaad ampicillin ama waxyaada haysato dawada aad doonayso inaad ka shakido in qofkan allergic uu ku noqon karo, marka ku muddo dawada lagu yiraahdo skin test oo dhakhtarku kusoo qoro, skin test lagu yiraahdo ku samee, taas maad ku sameynaysaa in yar kamid insha Allah. procedure-ku waxay nagaga filan muuqaal halka soo geliyay. muuqaalkaas markaa ayaan daawan doonaa insha Allah. So today the first injection we're going to be giving
is an intradermal test, an ID. Okay. So the first thing I'm gonna do is clean the area. meesha nadiifinaysa ugu horeyn kanadiiso I'm gonna pull the skin tight. markaa ka dhigaysaa I'm gonna insert the needle at a 10 degree adeegsanaysa waa tan angle. angle bay adeegsanay I'm gonna slowly push ayar and administer the medication. And it's gonna become a wheel. meesha markaa aasagu yeelanayna waxay barar yar oo kooban When she's administered her full amount of medication, she'll slowly take the needle out, marka way ka soo saartay put the safety on, and dispose of her needle.